Cabdifataax Cabdulaahi Cali waa wiil dhalinyaro ah oo lugtiisa bidixda iyo xubintiisa taranka ku waayay qaraxii 23 Febraayo ee sanadkan ka dhacay isgoyska kilomitir 0 ee magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamed Baarqab iyo qaar ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed ayaa Cabdifataax iyo qoyskiisa ku booqday xarunta cisbitaalka Kaysanay halkaasi oo lagu baxnaaninayo. gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamed Baarqab iyo qaar ka mid ah hooyooyinkii maanta tagay xarunta cisbitaalka Kaysanay oo xaaladda Cabdifataax lagu baxnaaninayo ayaa si dareen leh uga hadlay xaaladda Cabdifataax oo aan waxba looga qaban karin gudaha dalka Soomaaliya. Cabdifataax wuxuu u baahan yahay kaliya in la qaado dhakhtar la geeyo si isbarmadiisii lugti loogu kabo nolol fiican u galo insha Allah ayagoo ubad isku dhalayna Ilaahay aan ka sugayno kama quusanayna rajada Ilaahay xaqiisa laga rajo dhigo ilaa iyo maaragtay annaga meesha ugu dambayso waa soconaynaa. dawladda dhexeeyada ka mas'uula marka codkeena gaaro waxaan rabnaa madaxweynaha jamhuuriyadda ra'iisul wasaaraha golaha baarlamaanka aqalka sare intaba iyaga ka mas'uula codkeena waa baahiyay waa gaarsiinay Cabdifataax wuxuu gacan uga fadhiyaa dawladda dhexe waliba annagana aan diyaar u nahay inaan ku saacidno ummadda Soomaaliyeed wixii aan ka helno. Cabdifataax xanuunka iyo dhibaatada soo food saartay waxa kamid ah inuu lugta ka go'ay in uu waayay xubintiisii taranka oo aad iyo aad u xanuun badan xubinta taranka oo ah bini aadanka qaaliga meesha ugu ah oo mustaqbalkiisa iyo maaragtay niyadiisa iyo rajadiisaba aad iyo aad saameyn ugu leh marka waxaan codsanaynaa qof kasta oo Soomaali ah qof kasta oo heli kara in maantay uu taakuleeyo xaaladda Cabdifataax marka la keenayay sida ahayd Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay u qiyaasan tahay hooyadiisna hadda way qiraysay sida xaaladiisu ahayd maantana waad u jeedaan inuu kursi ku fadhiyo oo awoodi karo inuu maanta diyaarad raaco laakiin maalintaas waxay taagneeday nafsadiisu ma badbaadayso sidee loo samata bixinaa sidee loo daryeelaa sidee loo suubinaa isbitaalka oo dhammaantiis wada kaashanahay ugu horeeya agaasimaha isbitaalka iyo inta ka hooseysaba waxaa lagu dadaalay sida Cabdifataax xiil iyo hool loola garab istaagi lahaa haddaba uu yahay wiil Soomaaliyeed oo dhibaato aad u culus ay ku dhacday. hooyo Faadumo Maxamed Xasan oo dhashay Cabdifataax Cabdulaahi Cali ayaa madaxda qaranka cod naxariis leh ku gaarsiisay in wiilkeeda la soo caawiyo. anku dad ordi kana malin labada wiilo iga roorooneeday iyo aniga waa kor fadhinaa wixii guriga noo jooga waa ilmo yar yar oo waxba ogeynin qobolkood hilibkeen hadii loo kariyo cunaayaan alxamdu rabbil caalamiin marka madaxda sharafta leh ee dawladdeena Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa sida inoogu gubanayaan hadda dadka dhinacayna taagan ayakana dadka waaweynaaye inay imaha ku ogaadaan ay war hadee saad wax yeelaysiin adinka meeshi taagan Iraahin madaxweynaha sharafta leh iyo ra'iisul wasaaraha hana soo ogaadaan. Cabdifataax Cabdulaahi Cali ayaa xilliga uu dhaawac soo gaarayay ee 23 Febraayo ee sanadkan waxa uu ahaa aroos cusub isaga oo guursaday xaaskiisa oo lagu magacaabo Zahro taasi oo xilligan ku haysa cisbitaalka Kaysanay ee magaalada Muqdisho. Umar Maxamed Somane Universal TV Muqdisho.